Coca-Cola waa calaamad aad ku aragtay goob walba oo laga adeegto ama wax laga cuno. balse weli ma isweydiisay sida ay shirkadda Coca-Cola ku bilaabmatay. Waxa sameeyay Dr. John Pemberton xilligii dagaaladii sokeeyay ee Mareykanka ayaa waxa uu dhexda u xirtay sidii uu wadankiisa u difaaci lahaa. balse dhaawac halis badan oo soo gaaray ayaa waxay takhaatiirtii daweynayay siiyeen morphine si ay xanuunka geerida uga fududeyso. balse waxaa cajiib noqotay inuu badbaaday. aasaasayna shirkadda Coca-Cola ee qiimaheeda la aadan yahay maantay $74 bilyan Mareykanka ah. ku soo dhawaada channelkeena, fadlan ku soo bir adigoo subscribe gareynaya. mahadsanid. 1831 John waxa uu ku dhashay Knoxville, Georgia. waxa uuna ku soo barbaaray Rome, Georgia. markii John 19 sano jirsaday ayaa waxa uu qaatay laysankii uu kaga shaqaysan lahaa cilmiga loo yaqaano Thomsonian Medicine, taasoo ah in lagu daweeyo qofka cilmiga dhirta iyo acshaabta. balse waxa uu aad caqabad uga kulmay dadkii xilligaas oo aanan aad u aqoonin cilmigaas. balse John isma uusan dhiibin oo sanado kadib waxa uu ku biiray jaamacadda caafimaadka gobolka Georgia. waxa uuna qaatay degree pharmacy ah. balse nasiib wanaag waxaa bilowgii dagaaladii sokeeyay ee Mareykanka John uu go'aansaday inuu ku biiro ciidamadii dowladda. durbaba waxa uu noqday sarkaal. 3 sano oo uu dagaalkii ku jiray kadib waxaa soo gaaray dhaawac aad halis u ah. takhaatiirtii daaweynayay oo ka samray ayaa waxay go'aansadeen inay siiyaan morphine si ay ugu fududeyso xanuunka geerida. balse John si lama filaan ah ayuu u badbaaday. badbaadadiisii kadib waxa uu John go'aansaday inuu u wareego dhankaas iyo Dallas, Texas, isaga iyo reerkiisuba. waxa uuna howlwadeen firfircoon ka noqday xarun baaritaan caafimadeed iyo farmasi. waxa uu John noqday mid ka mid ah ragga ugu fiican dhanka dawooyinka gobolka oo dhan. balse daaha gadaashiisa John waxaa haystay dhibaato balwadeed. waxa uuna la qabsaday morfiinkii badbaadisay. waxa uu John isku dayay inuu raadiyo xal kana raadiyo acshaabta uu yaqaanay. waxa uu xilligaas maqlay dadka oo buunbuuninaya cabitaan la dhaho Vin Mariani, kaasoo ka koobnaa caleemaha kookada iyo waynka. waxaana uu dhex muuqday fursad uu kaga badbaadi karo balwadda morfiinka. waxa uuna isku daray caleemihii geedka kookada, wayntii iyo cola nutska. waxa uuna sameeyay cabitaanka la dhaho Pemberton French Wine Coca. caleenta kookada waxaa la sheegaa inay u fiican tahay inay yareyso gaajada, haraadka, daalka iyo sidoo kale xanuunka. waxa uuna John iska dhaadhiciyay in sharaabka uu sameeyay uu u fiican yahay dadka raba inay iska daayaan balwadda morfiinka, sidoo kalena yareeyaan daalka, wareerka. waxa uuna go'aansaday inuu u iibgeeyo askarta. waxa uu ka dhex diyaarin jiray laabkiisa kadibna iibgeyn jiray. John waxa uu la kulmay caqabad bedeli doonta ganacsigiisa guud ahaanba. sanadkii ugu fiicnaa ee uu cabitaanka John suuqa soo geliyay ayaa waxaa gobolka Atlanta laga go'aansaday in la mamnuuco khamriga guud ahaanba. waxayna John ku khasabtay inuu la yimaado hab cusub oo cabitaankiisa u badbaadiyo una sameeyo, maadaama uu ka koobnaa wayn oo ah khamri. markii uu waynka ka saaray waxa uu ogaaday in lowska loo yaqaano cola nutsku uu ka dhigayo cabitaanka mid aad u dhanaan. waxa uuna u bedelay kafiin gacan ku samays ah, kadibna ku daray sonkor, liin, citric acid iyo orange iyo alaabo kale oo fara badan. Frank Robinson oo ahaa xoghayihii John ayaa waxa uu kula taliyay inuu cabitaankiisa cusub u bixiyo Coca-Cola. waxa uuna sidoo kale ku sii daray in labadii lagu daro si ay u soo jiitaan indhaha qofka. sanadkii ugu horreeyay waxa ay sameeyeen dakhli dhan $50. waxa uuna kharash ahaan u noqday $70, taasoo u dhigan inuu khasaaray $20. John waxa uu arkay guuldaro, balse Frank oo ahaa saaxiibkiis waxa uu arkay inay tahay cashar ay mudan tahay in wax laga barto. waxa uu soo jeediyay in loogada ama shicaarka shirkadda lagu xayeysiiyo wadooyinka meheradaha cuntooyinka. inkastoo markii hore uu John ka hor yimaaday oo qaadan waayay, haddana waa ay tijaabiyeen. nasiib wanaag waxay sameeyeen dhaqdhaqaaq aan la filan karin gobolka Atlanta dhexdiisa. adduunyadu waa gelin bacayne. John waxaa soo wajahday xanuun, halka iibka iyo dalabka sharaabka Coca-Colana ay cirka soo sareertay. waxaa ku dhacay kansar calooleed.
waxa uuna John go'aansaday in 3 meelood sheerkiisa uu wiilkiisa ku qoro isaga oo aakhirkiina noqday mid ay dilootay balwadda morfiinku. hase yeeshee John waxa uu lahaa han ah in Coca-Cola ay maalin u noqoto cabitaan caalamka meherad kasta lagu iibiyo. Frank oo ahaa ninka shirkadda kala waday ayaa waxa uu la kulmay ganacsade caan ah oo fariid ahaa lana dhihi jiray Asa Candler. Frank ayaa isku dayay inuu ku qaneeyo Asa si uu u maalgashado shirkadda Coca-Cola. hase yeeshee Asa waxa uu aaminay inay shirkaddan socon karin. maalin maalmaha ka mid ah ayaa Frank oo dibadda la taagan saaxiibkiis Asa waxa uu tusay gaari gacan khamri eber ah ama dhalooyin khamri faaruq ah wareejinaya. waxa uuna ku yiri waan wadaynaa dadaalka shirkadda Coca-Cola ilaa heer gaari gacanlayaasha adduunka ay loogadeena iyo cabitaankeenaba ku iibgeeyaan daafaha dunida. isla markiina Asa waqti ma u salumin shirkaddii ayuu maalgashaday. waxa uuna Asa soo kordhiyay inuu u iibgeeyo cabitaanka shirkadda dukaamada farmasiyada. waxa uuna la yimaaday fikrad dahabi ah taasoo ahayd in kaad firi ah oo cabitaanka aad ka helaysid baararka cabitaanada. dardaarankii John. sanado kadib John waa uu geeriyooday. nasiibna uma yeelan inuu arko hankiisii ahaa in shirkaddiisa oo heer caalami noqota, halka wiilkiisii ka sii daray balwadda uu qabay morfiinka. waxaana dhanka kale hoggaanka ganacsiga hantiyey Asa oo ahaa fariid kuna dhiiraday inuu shirkadda ku fidiyo dhammaan gobollada Mareykanka una sii gudbo dhankaas iyo Canada, balse ma uusan awoodin inuu u sii gudbo dhankaas iyo Yurub. waxaana jirtay caqabad ah in Jarmalka laga aaminsanaa in wixii ka soo hara biyaha khamriga iyo waynka caruurta loogu talagalay, halka Faransiisku ay ayb u arkayeen cabitaan uu sameeyey Mareykanku inay cabaan ama isticmaalaan. maalin maalmaha ka mid ah ayaa Asa waxaa xafiiska ugu yimaaday 2 looyar oo dhalinyaro ah lana kala dhaho Joseph iyo Benjamin. waxayna u soo jeediyeen Asa talo ah inuu ka dhigo cabitaanka mid la qasacdeeyay ama dhalal ugu shubto si qofku xaafadiisa ula aado. fikraddan Asa wuu ka labalabeeyay, hase yeeshee wax uu siiyey fursad ay labadan dhalinyarada ah ku hirgeliyaan kuna tijaabiyaan fikirkooda. waxa uu ogolaaday inuu siiyo $1 ayna gataan cabitaanka wax allaale iyo waxay rabaan, kadibna ay qasacdeeyaan. haddii ay khasaaraanna iyaga ayay khasaarayaan. Joseph iyo Benjamin waxa ay u hargwaleen sidii ay u qasacdeyn lahaayeen cabitaankii. waxaana la yaab noqotay in shacabku aad u jeclaadeen heer shirkadihii tartanka kula jiray ay iyaguna fikradahan koobiyeen ama xadeen. waxayna shirkaddu gaartay heer cusub iyadoo ay ku fakartay sidii ay u samayn lahayd dhalal ka duwan looyinka shirkadaha kale si macaamiishu u ogaadaan inaysan koobi ahayn. sanadka bacdi markii dhalooyinkii la soo kordhiyey 1916 ayaa Asa waxaa loo doortay maayarka Atlanta. waxa uuna maamulkii shirkadda ku wareejiyey caruurtiisii, balse nasiib darro 3 sano ka bacdi waa ay iibiyeen shirkad waxaana loo gaaray qiimo lacageed $25 milyan oo u dhiganta maantay $373 milyan oo dollarka Mareykanka ah. mid ka mid ah dadkii maalgashaday kambaniga Coca-Cola oo ahaa bankar lana dhaho Ernest Woodruff ayaa waxa uu dejiyey falsafada shirkadda oo ah in dhadhanka aan la bedelin goob kasta iyo gobol kasta oo shirkadda lagu sameynayo. sanado kadibna waxa uu shirkaddii ku wareejiyey wiilkiisa Robert oo ahaa nin aad u firfircoon kuna fiican iibgeynta. waxauna ka shaqayn jiray iibgeynta gawaarida heer uu aakhirkii noqday maamulaha shirkadda. waxayna soo kordhiyeen naqshado cusub. dhanka kalena waxa uu dhammaystiray hankii Asa oo ahaa in Yurub loo iibgeeyo shirkadda. waxayna gaareen heer ay taageeraan ciyaaryahanada ama ciyaaraha adduunka Olombikada iyo kuwaasoo dhan. dagaalkii labaad ee adduunka dhammaadkiisana waxay ballan qaadeen in askari kasta oo Mareykan ah uu dhalo Coca-Cola ah nasiib u yeesho meel kasta oo adduunka ku yeesho. waana brandiga labaad ee adduunka ugu caansan marka laga yimaado Nike. maanta waxaa lagu qiyaasaa in ka badan 2 bilyan oo cabitaanka Coca-Cola lagu iibgeeyo adduunka daafihiisa in ka badan 20 wadan. waxaan soo gaarnay barnaamijkan dhammaadkiisii. fadlan haddaad ka heshay barnaamijyada sida tan oo kale ah like saar muuqaalka si aan u soo badiyo. sidoo kalena ha hilmaamin inaad subscribe saadho maadaama ay aad ka caawinayso. aad ayaad u mahadsan tahay.